munaasibadan habeennimadii xalay lagu taageerayay murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka Awdal ayaa ahayd munaasabadii ugu ballaarnayd ee murashaxiin lagu taageero waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ganacsiga beeraha iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal iyo taageerayaasha kala duwan ee murashaxiinta caawa munaasabadani lagu taageerayay murashaxiintani ayaa waxay kala haayeen aqoon-yahan Fuad Axmed Diiri oo u tartamaya golaha wakiilada Somaliland astaantiisa codayntuna tahay Toosh iyo sidoo kale Axmed Cali Xaddi oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Boorama astaantiisa codayntuna tahay 201 Cabdinaasir Sheekh Ibraahim Bakaal oo ka tartamaya golaha deegaanka degmada Baki astaantiisa codayntuna tahay 201 munaasabadani ayaa intii ay socotay waxay taageerayaasha kala duwan ee murashaxiintu halkaasi ka muujiyeen taageerada ay u hayaan murashaxiintani waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka had waxaan leenahay waa habeen qaali oo habeen aan soo dhaweynayno xildhibaanadeena aan taageersanahay waxaan leenahay ilaahay idamkii inaan xafladda sida aan u soo baxnay sidii aan ku ka weyn aan u soo baxno sidii aan u soo saari lahayn aan u soo baxno waxa labada beelood ay soo saarayaan waa saddexda xildhibaan ee halka fadhiya insha Allah inay guuleystaan oo yaan ilaahay ka baryeynaa maalinta codka sida aad u timaadeen iyo si ka qurux badan inaad muxuu ahaa codka ugu ridaan oo codkiina uu noqdo xabad rasaasa taasaan ilaahay ka baryeynaa waan hambalyeeynaa horta musharaxiinta halkan jooga ee saddexda ah waxaan leeyahay ilaahay ha idiin sakhiro waxaan ka codsanayaa bulshada taageerayaasha aadan iyo muuse inay si mugle u soo saaraan musharaxiinta beesha muusafiin haddaan nahay dhammaan waxaan daba joognaa wasiirkayga Axmed Muumin Saad baan daba joognaa imika maanta iyo bariba kulmiyaan nahay guushu waa kulmiye xusbigu waa kulmiye geestooda iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay saddexda musharax ee isku sidkan kuwaasi oo bulshada ku codsaday inay codkooda ugu hiiliyaan maalinta codaynta waan xisbiga kulmiyana Soomaa taageerayaashaas waxaan leeyahay sida sharafta leh waxay naga dambaysaa waxa soo socota 13 maalinta cod bixinta waxay noo ballana waxa waqti adag baan maraynaa 12 saacadood waxaan haysanaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida mugga iyo miisaanka leh ee aad uga soo qayb gasheen aad iyo aad baan walaalayaal idinka mahad celinayaa anigu waxaan ahay waxa weeye waan yaraa in yar baan yaraa araaranayaa anigu waxaan ahay maayirka bedelaya maayirka hadda insha Allah taala aragtida aan ku shaqeynayaana waa aragtidiina waxa weeye waxaan idinka baahanahay oo waxa weeyaan garabkiina maanta ka codsanaya maalintaasi aad maanta u soo buuxiseen inaynu cududeena iyo codkeena aynu kulmiyo kuubsano Soomaa 201 oo Boorama aynu kuubsano Soomaa aad iyo aad labada ku soo koobaya waxa weeyaan waa kow inaad noo ducaysaan caawa inuu ilaahay nagu asduro oo nagu guuleeyo oo idinaad garab istaagtaan biidmillaahi hadii ilaahay dhaado midda labaad ee ku darayaa waxa weeyaan caawa insha Allah hadii ay baydmo sida aad noogu timaadeen ee aad noogu soo baxdeen ee aad waqtigeed noogu soo hurteen inaad biidmillaahi koob iyo 30 meeyna codka noo siisaan biidmillaahi hadii ilaahay dhaado dhankiisa isaguna waxa xaggaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal iyo gudoomiyaha gobolka Awdal saddexdan xildhibaan ee taageerada u muujiseeni waxay wajahayaan codka gobolka yaala oo ku dhow 150,000 ayay wajahayaan waa idinka hadda la idinka rabaa inay codkiina ugu helisaan waxay noo bilaabmi doonaa ololayaashii doorashooyinka oo fagaarayaasha la isku soo bixi doona khayriyadaha xisbiga kulmiye wuxuu leeyahay maalinta isniinta hadii ilaahay idmo ayuu fagaarihiisa leeyahay waxa weeye maanta sida aad awoodiina u muujiseen halkan ayaa la idinka rabaa inaad khayriyadaha la isku imanayana aad awoodiina u muujisaan xisbiga kulmiye ha guuleysto
jamhuuriyadda Soomaalilandna ha guulaysato guushu waa intaasoo nugula sii dhowaannaa maalinta 31 May xooggiinna ayaan laydinka waayin iyo waxaa soo kaxaysan kartaan kalaba ugu dambeyntiina waxa munaasabadani soo gabagabeeyay wasiirada wasaaradaha beeraha iyo ganacsiga xisbiga kulmiyaha guulaysto xisbiga kulmiyaha guulaysto xildhibaanada saddex xildhibaan ee aynu caawalkaas kugu nimidnay ee taageerayaashoodii iyo cududoodii soo bandhigay ha guulaystaan caawa cududiinii aad soo bandhigteen laakiin waxaa loo baahan yahay maalinta codka lagu goray 30 May inaad dhammaantiin maalinta bisha 30 tahay in nin walba sanduuqa uu ku usada xildhibaanada saddex xildhibaan ee xildhibaanka Baki ka sharaxan deegaanka Baki baa u codeynaya baarlamaanka waxa looga cayay regionka gobolka Awdal oo dhan baa looga codeynaya Sayla ilaa iyo Dila xildhibaanka degmada Boorama waxa looga codeynaya degmada Boorama looga codeynaya maalinta Isniinta ee ay bishu tahay 24 waa maalintii banaanbaxa waa maalinta loo baahan yahay sida maanta aad u soo baxdeen si ka weyn oo ka mugiya miisaan culus inaad khayriyada u timaadaan inaad u hiilisaan maalinta 31 May oo ah maalin waqtigeedu gaaban yahay waxaan aad iyo aad idinka rajaynayaa sida aad ugu soo baxdeen maanta bisha 24keedana waa maalintaan muujinaynay cududda xisbiga kulmiye oo si xoog aad u muujisaan oo sida caawa aad u timaadeen aad ugu adkaysanaysiin uumiga kuleelka baxaya aad maalintaan ugu adkaysatiin